محمد عبد الله ورعده xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo maanta la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxa uu si adag uga jawaabay hadalla maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Salebaan Dhuxul hadalkaasi oo ku wajahnaa isla markaana liddi ku ahaa siyaasiyiin waaweyn oo dhawaan ku soo biiray xisbiga mucaaridka ah ee wadani soo diga rogtay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye kuwaasi oo qaarkood mansab wasiirnimo ay ka soo qabteen xukuumadda haatan talada haysa ee uu hogaamiyo madaxweyne Silaanyo haddaba Maxamed Cabdilaahi Urcade xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa waxa uu hadalkaasi ku tilmaamay mid meel ka dhaca waxaana ayaan darro ku sheegay in Axmed Salebaan Dhuxul afayeenka madaxtooyadu uu aflagaadeeyo siyaasiyiinka waaweyn isla markaana ka mansab iyo meeqaam sareeya waxaana hadaladiisii ka mid ahaa runtii horta waa nasiib darro وجعلينا قف كهذا لو وطنيان قف كما هذا لكن والله يقعنا إنه يهين المجاهدين إنه يهين رجل كان تعرف بدر سوق عليه إنه يهين والمسؤولين وهرمود كده الكين يهين ومدة ما يودار كسا الحزب الوطني أنا واحد يسوق كلنا يعني بسنة هذه ونص هذه أنا نقفر السنة لكن واقع قرشة حكومة مركز أركان رجال مسؤولين تدبعتوا مدة كويسة ayuu adkayso waa inay kala qayb galaan waxa wada aqoonayaan nimanka sheegaysa marka waa ka xunnahay inay ragaari gaari kareen inay aflagaadiyaan Maxamed Cabdilaahi Urcade xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay geedi socodka hanaanka siyaasadeed ee dalka iyo dhaliilaha dul hoganaya xukuumadda haatan talada haysa waxaanu yidhi laakiin waxaan ognahay in gobolada awdal iyo salel labaduba ay runtii cabashooyin fara badan ay xukuumadda u soo gudbiyeen ilaa maantana xukuumaddu aan waxba ka qaban waxaan u soo jeedinaynaa xukuumaddu inay hoos u eegto in mas-uuliyadda loo xil saaray ay gudato oo cabashooyinka ay boorame iyo salelba ay soo gudbiyeen si degdega wax looga qabto waxaa kaloo xisbiga wadani uu dhowr goor ku baaqay haddana aan ku celinaynaa si adagna u leenahay gobollada sanaag iyo sool bari sanaag bari iyo sool waxaan jecelahay runtii in wada hadal lala galo asalkabana golayaasha qaranka waxaa loo doortay inay qarankan isku hayaan waxaana hormood oo xukuumadda cali khaliif wuxuu ogolaaday inuu Soomaaliland la hadlo sabab ay xukuumaddu u digtaa ma jirto waxa weeye qof wal oo reer Soomaaliland waxay xukuumaddu ku qasban tahay oo wax tabanaya in lala hadlo waxaanu leenahay qol caaradi iyo xal maaha waxa xalaa in lala hadlo qof kasta wax tabanaya wada hadal lala galo xisbiga wadanina kaas oo aaminsan yahay waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland meel wada joogtaba waa isku xuquuq waa wada muwaadiniin qofkii wax tabanayaba waxa xukuumadda loo sameeyay gabagabadii xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Cabdilaahi Urcade waxa uu carabka ku adkeeyay in xukuumadda Soomaaliland ay hortaagan tahay u dhaarinta bilaabidda hawlahooda shaqo ee gudida cusub ee doorashooyinka qaranka isagoo soo jeediyay sida ugu dhaqsaha badan in loo dhaariyo gudidaasi si ay u fuliyaan isla markaana u fududeeyaan doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan sanadka soo socda Khalid Bulshaawi Somaliland Space Channel Hargeysa